gaaray YouTube-ka laakiin jaranjarada ama salaanka ka dhacay waxa uu caan ku ahaa magaca Master Enemy laakiin magaciisa oo buuxa waxa uu ahaa Trey Eric Sessler. Trey waxa uu ahaa YouTuber hore bartiisana waxa ku xirnaa dad aad u fara badan waxa uu soo gudbi jiray muuqaalo iskugu jira maad iyo qosol inta badan waxa uu reaction ka bixi jiray waxa loo yaqaan Enemy waa kartoon ay soo saaraan Japanese-ka oo dhaqdhaqaaq sameynaya laakiin markii dambe waxa uu isku bedelay inuu soo saaro muuqaalo dadka ka nixiya wax walba waxa ay xumaadeen habeenkii bishii Maaj ahayd 2012 okay hooyadiis waxa ay u timid garaashkii uu ku jiray kadibna 4 xabadood ayuu xabad kaga dhuftay walaalkiis ka weynaa Max Sessler ayaa xabadaha maqlay kadibna waxa uu soo aaday dhanka iyo garaashka Trey Sessler ayaa ku soo baxay kadibna waxa uu xabad kaga dhuftay madaxa markuu uu walaalkiis iyo hooyadiis dilay waxa xabadaha maqlay sidoo kale odayga oo ku jiray qolka jiifka Trey Sessler waxa uu ka tallaabsaday walaalkiis oo barkad dhiiga ku jira kadibna waxa uu aaday qolka jiifka ee waalidiintiis halkaasna waxa uu ku helay aabiis oo 2 xabadood madaxa kaga dhuftay Trey markuu aabiis ku dilay qolka jiifka waa uu soo laabtay si uu u hubiyo inay jirto cid nool kadibna waxa uu ogaaday in walaalkiis ka weyn uu nool yahay Mark xabadii madaxa kaga dhacay dhaawac ayuu noqday kadibna waxa uu ku gurgurtay suuliga Trey waxa uu ku jabiyay masquusha suuliga kadibna madaxa ayuu ka toogtay sidaas waxa sheegay Trey markay ay booliiska qabteen Trey intaas kuma hakan sidoo kale waxa uu ku laabtay hooyadiis ayadoo meed ah ayuu haddana madaxa xabada kaga sii dhuftay sida uu ku sheegay qirashadiisii dhanka booliiska markii la weydiiyay waxa uu yiraahday waalidkeyga iyo familkeyga waxaan u dilay in aan nafsadeeda aniga difaacanayay Trey intaas kuma hakan sidoo kale wixii noolaa oo guriga jooga waa uu baabiyay sida bakeelayaal guriga ku noolaa kadibna albaabka guriga ayuu waxa uu ku qoray waligay nafsadeeda ma saamixi doono intaas kadib waxa shakiyay dadka dariska la ahaa oo xabadaha maqlaayay waxa ay waceen guriga teleefankiisa kadib markii laga qaban waayana waxa ay si toos ah u waceen booliiska oo goobta soo gaaray isla markiiba waxa ay arkeen qoraalka darbiga ku xarranaa oo Trey Sessler uu ku qoray oo ahaa waligay ma saamixi doono nafsadeeda qoyskeyga waan jecelahay Trey waxa uu bilaabay inuu dhunto wuxuuna tagay yar saaxiibo ahaayeen gurigiisa 24 saac kadib waxa soo qabtay booliiska intaas kadib booliisku waxa ay bilaabeen inay Trey wareystaan sababta ku kaliftay in waalidkiisa sidaan arxan darada ah uu u dilo sidoo kale waxa uu wareysigiisa ku sheegay inuu rabay inuu weeraro iskuulkii uu hore u dhigin jiray